السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ولا لذي ذمالك سأدونك دعالة سكتشوغ رير يوتيوبو بريها وإذن كما قناة لكن صور دواذا وحد ما عرفته وإذن قصة لابتي واكحو ما هرتا ساعتين إن شاء الله بإذن الله وانك صور رميا لكن ما أنت وحان ربا hablo iisoo dhiibtay talo wata ilaahay laakiin hablo talo iisoo dhiibtay ayaan rabaa ma aragtay inaan taladii aan halkan kaga waramo aan ma aragtay idea-hayga ama fikradayda si walaaltinimo insha Allah aan u siiyo taladaas insha Allah biidnillah. Talada waxay tahay habla jira raba inay iscaateeyaan oo raba inay ma aragtay hore u socdaan oo raba ma aragtay inay caruur dhalaan oo raba ma aragtay in adduunka wax la qaybsadaan maadaama aynu dad qaxoontiya nahay oo ma aragtay masaakiina aynu nahay waa hablahani waxay rabaan inay adduunka la jaan qaadaan ma fahamteen laakiin waxyaabo fara badan ayaa ma aragtay qofka ka hor istaagi kara jaan qaadka aad la jaan qaadayso ma aragtay maxaa la dhahaa adduunyada. Okay, waxaas maxaa kamid oo kale for example oo kale hadda waxa aad habla waxay dhaheen oo ma aragtay luuqa igu soo qoray waan ka soo booday sheekada habla luuqa waxay igu soo qoreen walaal waxaan rabnaa talo inaad siiso talada waa ta ilaahay mar walba laakiin iyo ta lagula garab taagay walaalka kula garab taagay weeyaan ma sha Allah tabarakallah. Waxa dhacday habla waxay dhaheen walaal waxaan rabnaa inaan saacatina laakiin ismaacateen karno walaal waxaan rabaa inaan caruur dhalo laakiin maxalada ninkiiba ay ku xumaaday maxaan sameeyaa gabdhaha horta waxaan u sheegayaa walaalada ee meel walba adduunka dacalaska joogo ama gabar yar ahaw ama gabar weyn ahaw walaalahay waxa ogaataa adduunkan inuu yahay wax la dhaho ee geedi baynu nahay waa geedide marka geedigi marka aad sahan tagto ee aad tiraahdo waan sahan tagayaa oo waxbaan soo sameynaya meel baan aadaya waan sahan tagayaa waa in aad geedigaagii aad diyaarsataa wixii aad ku guuri lahayd waa inaad diyaarsataa anigu reer baadi aan ahay baadiyadaas baan idinku soo hal qabanaya marka aad guurayso ama aad safrayso baabuur ku safar ama awr ku safar ama meel kale diyaarad ku safar wixii lagaaga baahan yahay waa inaad si diyaarsataa for example kale waa inaad si diyaarsataa maxaa la yiraahdaa cuntadii aad maalinta jidka ku sii cuni lahayd meelihii aad ku sii nasan lahayd hadad caruur ka haysanayso caruurtaada waa inaad ma aragtay aad marmarka qaarkood aad meel ku nasataa ilmo markuu dhaw wakaajiya aad meel ku yara leexataan taas waxay ka dhigan tahay nolosha adduunkuba waaba iska geedigaas hadaadan mar walba u diyaar garoobin wuu ku beertarayeynaya. For example kale waxaa jira gabdho yar oo masaakiina oo geedi ku jiro oo safar ku jiro oo laakiin aan u soo hub qaadanin oo u soo diyaar garoobin safarkooda. Hablaha yar masaakiinta ee aan u soo diyaar garoobin safarka waxaa kamid ah hablo for example kale hadda waxa la isoo weydiiyay hablo raba inay ilmo dhalaan laakiin nimankoodii ay naga kala gursanayaan. Can you believe that guys? Wallahi xadda iska istaagtay waxaa dhacda oo jirto oo inta badan luuqa la igu soo diraya gabdho nimankoodii ay isqabeen intay Afrika aadaan ama wadamada kale aadaan ay gabar soo guursanayaan oo gabadhii xataa isagu aan u sheegin ay dadka kale ka maqlayso iyadoo loo hambalyeynay hooyey walaala oo la leeyahay what is going on ay tiraado qofkan loo hambalyeynaya min odaygayga han yes waa odaygayga because waa guursaday hadda gabadhan ilmay rabtaa ma sha Allah tabarakallah waa gabar yar noloshaadii bay ku siisay aday geedi kugula jirtaa ma u diyaar garowday gabadha ma caawinaysa oo ma rabtaan inaad ma aragtay isla jaan qaadaan mise martii isla jaan qaadaan dad fara badan baan rabin inay isla jaan qaadaan dad fara badan baan kullu goynaya dad fara badan baa markay niman fara badan markay gabadha guursadaan is oranaya waxbaad calashaan waxbaa ka dhiman hore u soco oo naaga kale iyo wax hadda xataa isaguna ilmo male iyaduna ilmo ma lahan markaas oo kale waxa lagu baahan yahay autopilot baa jiro oo baabuurka ma aragtay marka ku wadayso autopilotka aad saaranayso dabadna baabuurku is wadayo markaas oo kale autopilotka inta laga dajiyo baabuurkaaga ayaa la yiraahdaa haye maxaa ii haboon maxaan sameeyaa adduunku lagu sheegaya waa san soo sheegay waa geediga ama safarka aad ku jirto waa ina caynka u geejisataa hadduu ninkaas bini aadankii aan waxba ku soo wadin oo aragto inuu ka korboodayo oo aragto inuu naaga kala guursanayo adigii oo gabar yar ah oo aan curanin hello ma la ismaqlayaa
anigu malihi ninka ilaah ba afar baneeyay alxamdulilah ma sha Allah tabarakallah laakiin anigu malihi nin walba markuu guursado ha laga cararo ninka ku dhaqanaya ee gabadhiisii ma aragtay ma sha Allah caruurta haysato ee gabadha ma aragtay ma sha Allah raba inuu gabadh kale guursado oo uu iyadana daryeelo that's okay no problem laakiin gabadha aanad daryeelinin oo aadan waxaan ku ori maxaa la curanin intaad guursato oo ka guursato gabadh kale dabadna u soo hoyato are you kidding me guys that's not okay gabadhii masaakiinta ahaydna waad maaragtay waad dhibaataysay adiguna waad dhibaataysay laakiin gabadha ayaa halkan markan looga baahay ninkii tashay adiguna tasho waa u hoos fadhida walaalay waayaad stresska isugu dilee waayaad dhibaatada isugu dilee waayaad oohinta isugu dilee waayaad balanbalkii barota isugu dilee mar hadduu guursaday adiguna abaaya guurso that's it iska fur ilaah bay fur ninka waxaas kale u banay inta iska furto nin kale oo wanaagsan oo kula rabo oo ilmo kula rabo guurso inaga gabdhaynu nahay deadline bay inagu jirto alashan gabdhay isaga waa nin maanta dhan u dhali kara ya isaga oday xataa u dhali kara laakiin adigu gabadh baa tahay ma dhali kartid gabadha xaydkaaga ku xiranta inta gabadha tahay so deadline maadaama adiga kugu haysto adigu aad ku jirto deadline gabadhay meesha ka kacban kula yahay maxaa ku dhigay are you kidding me nin kale oo wanaagsan guurso haddaad 40 gaadho 50 gaadho abaa ma dhali kartid markaas xaydka waxaan ku waa yaa maxaa dhahay markaa gabadh walba way jeceshahay ilmo yar inay dhabta ku qabsato oo iyadu ay dhashay ka goor baan ku oro oo ka tasho oo waa geediga aan ku jirnay geedigaaga u diyaar garow oo waxaad tiraahdaa sheekadan waa sheeko autopilot ku socota waa inaan autopilot ka qaada aan break qabtaa break qabso walaalay macaanay oo sometimes qofka bini aadanka waxa uu iman kara duufaan baa dhici kara adigoo safraayo baabuurka ku safraayo ama diyaarad ku safraayo ama meel ku safraayo duufaan baa dhacay roob baa da'ay laakiin roobku waligii ma da'o roobku baanta dhan ma da'ayo that's waxa waaye dhibaatada laguma raago waa laga bogsadaa dhibaatada so that means like duufaanka ilaa iyo caawo 24 hours ma soconayo duufaanku hal mar buu dhacaa halkaa mar waxaa laga yaabaa inaad ma aragtay kufto oo kacdo baabuurka meel baa lagu duwadaa waa la yara nastaa kadib haddana caynka loo gejiyaa la socdaa that's it laakiin you don't need like inaad tiraahdo duufaan baa dhacay duufaankaasi weliga waa dhacaya gurigan ku jiraya no you have to get up and soco ood socodka yeah wallahi billahi guys taasan idin sheegaya gabdhaha Soomaaliyeed waxaan ka codsanayaa in ay rabta inay ilmo dhasho iyo rabta inay weydka iska ridaba ay caynka hoosta ka xidhata baan ku oo diyaar garowda safarkaaga walaalay u diyaar garow oo marka dhibaato kugu soo gudboonaato waxaan ku intaa fadhiisato waxaad tiraahdaa sidee baan u xaliyaa ha ooyino ha fadhiino hadhiin waxba ma aha ilaah baa ii qadaray ilaahay subxaanahu wa ta'ala adigoo yar oo baby ayuu ku sameeyay ilaahay adoo qurux badan buu adduunka ku keenay adaa saa isu galay adaa isduleynaya adaa hoos isu dhigaya meesha ka kac waxba ma hadii ilaahay ii qorana waa helaya hadii no ilaahay wuxuu ku yiri dadaal aniguna wax walba ku barakeynaya soo dadaalka sameey insha Allah biidnillah hana ku fikirin oo hana yani ku noqonin alashan yani ku soo koobnaanin adduunka ku balaadho alxamdulillah rabbil alamin adduunka isku soo yaraynin adduunka ku balaadho soo gabar kasta oo rabta inay ilmo dhasho gabar kasta oo rabta inay iscaatayso gabar kasta oo rabta inay nolosha meel ka gaadho ka kac waan ku gabar ka kac okay khayr barakayn rajaynaya videogan insha Allah videoga ku xigana commentiga ku soo qoro waxa aad rabteen insha Allah inaan ka soo hadlo okay I love you guys bye assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh bye